salaamullah dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed sida wadalantiin anigoo ah Mustafa waxay ka su'aal ah maxaa keenayo in dawlad walba soo marta Soomaaliya ay ku fashilanto inay horumar u keento wadanka ama xal waara u raadiso ama u horseedo wadanka maxaa yeelay systemka dawladda haatan ay ku shaqeyso ma ahan mid xal u keeni kara ka soo kabsashada burburka Soomaaliya wali ka taagan waayo wuxuu si xoojinayaa kaliya kala qaybsanaanta wali ka dhex jirta qabaa'ilada Soomaaliyeed tusaale xildhibaanada Soomaaliyeed ayaa cadeen u ah hubka xoojinayo isticmaalka magaca qabiilka kana horumarinayo qarannimada waayo xildhibaan walba wuxuu halkaasi ku yimid isagoo xambaarsan magaca qabiilkiisa madaxweynaha waa kan kaliya wax ka bedeli karo systemkani noocan hadda ay dawladdu ku shaqeyso isla markaana horumar iyo isku keenid bulsho u horseedi kara wadanka balse waxa la arko kaliya ayaa ah in madaxweynayaasha ay dhisaan bilicda halkii ku shaqeeyaan sida madaxtooyada iyo wasaaradaha waxay sidoo kale xoojiyaan amniga wadooyinka ay dawladda isticmaalkeedu ugu badan tahay si ay naftooda khatarta ugu waardeeyaan madaxweyne walba ee soo maray 30 sano ee burburka ma jiro madaxweyne qabtay wixii ummadda ay ka filanaysay balse iyadoo taa jirto ayaa inta badan bulshada Soomaaliyeed waxay madaxdu dawladda ugu kala taageeraan ama ugu kala sacbiyaan ama shakhsigii ku qabiil ah mas'uul walba ee soo maray dawladda xitaa hadduusan waxba qaban xilligii xilka dawladda uu ka hayay balse ogow wali mas'uulkaas heebtiisa agtooda wuxuu ka yahay haliyey systemka noocaani ah ay haatan dawladdu ku dhisan tahay xaqiiqatan wuxuu keenay in dhalinta xilligaani jirto ay aaminaan in qabiiladoodaba ay kaga horeyso dawladnimada qurbaha oo ah halkan aniga hadda ku noolahay xaqiiqatan ku sheego dhalintu waxay iskula kulmaan qaab qabiileed waxay isku aruursadaan qaab qabiileed waxay isku xiriiriyaan qaab qabiileed intooda badan waxay inta badan xaqiiqatan mararka qaar isku dilaan kala taageerida shakhsi dawladda ka tirsan qabiil dartiisa ogow dhalintani waa kuwa 20 ilaa 35 jirada ah waana dhalinta mustaqbalka xiga sugaya Soomaaliya kuwa sidaan u dhaqmaya bal adigu isweydii 30 sano ee burburka inta in leeg ayaana soo martay mise dawladood ayaana soo maray balse xaqiiqada ayaa wali inay taagan tahay amni xumadii abaaraha fatahaadaha ay yihiin kuwa joogtaa soo noqonayo kaabayaasha dawladda masaacidi karaan baahiyada bulshada ay qabaan wadooyinkii waa wali kuwa sidii u burbursan wadooyinka gobolada koonfurta ah leesay gudbo amni xumo iyo burburkii wali waa kuwa sidii u taagan xitaa ma jiro hal xafiis oo dawladda federaalka ka shaqeeya meel ka baxsan magaalada Muqdisho waxaa jiro murmo u dhaxeeya dawladda iyo dawlad goboleedyada waxaa wali toole xitaa jirin hal isbitaal oo free u ah bulshada si inta bulshada aanan awoodin isbitaalada private-ka ay uga faa'iideystaan taa ayaa cadeen ku ah in marxaladii qabaa'ilka aysan wali toole dhammaan ay tahay mid jirto xitaa systemka dawladda haatan wuxuu kala darajo siinayaa dadka xaq jirinta ay la soo qabto tusaale Xasan Daahir Aweys soo qabashadiisii kadib wuxuu diiday inuu iclaamiyo inuu ka tanaasulo mabaadi'da xaq jirnimada hor u aaminsanaa balse wali wuxuu soo galaa live social media xilligoo doono halka Sheekh Mukhtaar Robo Abu Mansuur isaguna soo qabashadiisii kadib iclaamiyo inuu ka baxay wuxuu hore u aaminsanaa oo mabaadi'da hore u aaminsanaa balse hadda waxaan ognahay in xabsiga loo taxaabay labadoodaba agteedu waa ka dambiilayaan balse waxaa ujeedaa oo kaliya systemka dawladda inuu kala darajo siinayo xitaa dadkii la soo qabtay ee xaq jiriinta ah marka anigu ma oran karo dawladda federaalka ee Soomaaliya ee waxaan ku oran karaa oo kaliya inay jirto wali toole dawladda qabaa'ilada Soomaaliya